suurtagal ma tahay in xaaskaaga nasiina aad kala qaadataan si ay u soo raadsato qofkii u geli lahaa beddelkaaga? Magaciisa waa William Smith. Waxa uu dhashay Sebtembar 25, 1968. Xaaskiisa waa Tuma. Xaggee ayay noloshooda ka bilaabatay? William Smith ayaa noloshiisa ahayd mid ku salaysan riyo, balse xilligaa gacan aan waxba ku hayn. Waxayse noloshiisu iftiinka u bilaabatay markii uu helay shaqadii Hollywoodka ee xilligaa jirtay. Isla shaqada ayuu ku bartay marwada hadda u dhaxday ee la yiraahdo Jada, balse xilligaas Jada waxay gacantiisa ku jirtay Tupac. Tupac ayaa ahaa ninka ugu magac dheeraa xilliga xidigyada jiray ama xidigyada ka muuqday Hollywoodka. Jada ayaa la weydiiyay xiriirka ka dhaxeeya Tupac iyo iyada. Waxayse ku jawaabtay, waxaa Tupac isku baranay high schoolka, isla markii uu isoo dhawaadayna wuxuu ahaa sida barqabada oo kale, taasoo kugu kalifaysa inaad siisa fiiro gaar asaga wuuna kusoo jiidanaya adiga. isla wareysi kale Tupac la wareystay ayaa la weydiiyey xiriirka ka dhaxeeya Jada iyo asaga. Tupac ayaa xilligaa ku jawaabay, Jada waa wadnahayga, waana dhiigayga, waana qofta keliya ee indhahayga ku dogsadaan. Halkan ayay ka bilaabatay nolosha. Waxaa la gaaray ku dhiiranaanshadii Will Smith wax ku sheegan lahaa xilligaas. Will Smith oo gaariga ku jira ayaa helay warqad ay ku qoran tahay nambarka Jada, waxayna kadibna ku yidhi, Jada, sidee tahay? Maxaase cusub? Waxay ku jawaabtay, waa fiicanahay, nothing, wax cusubana ma jiraan. Wuxuu weydiiyey, ma aragtay baryahan qof? Waxay ku jawaabtay, maya. Wuxuu dhahay, hadda aniga ayaad i jeedaa. Jada xilligaa waxay jirtay 23 jir. xiriirkoodana xilligaa ayuu bilaabay. Will Smith ayaa leh, aniga iyo Jada nolosheena waxay ahayd mid aad u sareysa, balse waxaan ahaa sawir-sidaha nolosheena. Curadooda ayaa dhalatay 1992. waxaa soo dhacay warkii ugu xumaa ee maqasho Jada, waa geeridii Tupac, wuxuuna dhintay 1996 Sebtembar 13. noloshii Jada ayaa isku beddeshay mid murugo xaraysay xilligaa, balse 1997 ayuu ka faa'iidaystay Will Smith murugada haysatay Jada una soo bandhigtay guur. isla xilligaa waxay dhashay codadka xogeenkii, wuxuuna dhashay 1998. William wuxuu noqday mid ka soo muuqda xidigaha Hollywoodka. waxaa la soo gaaray xilliga la rumeyn lahaa sawirkii guusha uu sitay William. 2000 waxaa dhashay yaraankoodii. nolosha waxaa ahayd mid ku socoto deganaan iyo qurux, balse wuxuu isbeddelku yimid markii uu soo baxay isku dhac hoose, taa oo keentay in fasax la kala qaato si xoogaa labada qof ay deganaansho usoo kala dareemaan, taa oo isku beddeli doonto inuu yimaado xidigii fanka weliba sitay codka halaasiga leh Agustin Alsina, ka oo hantin doona qalbiga Jada. Jada iyo Agustin Alsina ayaa isbartay 2015 July, taa oo soo dedejin doonta in Jada ay dalbato fasax si dheeraada si ay u soo hubiso qofkan inuu yahay qofkii lagu beddeli lahaa William. Agustin Alsina ayaa xilligaa qaaday heese kala nooca una qaaday Jada. waxaa ka mid ah heestii Cry, hees waxaa ka mid ahayd White. heestii Cry erayadeeda waxaa ku jirtay sidaan oo kale, I can hold these tears, let me cry, they say a man ain't supposed to cry. ma celin karo ilintan balaan ooyo, waxay yidhaahdaan ninka ragga ah ma mudna inuu ooyo. iyo heeso kaloo badan sida Wait iyo heesaha kaleba. xiriirka Agustina Alsina iyo Jada waa waxa lagu hadal haynta badan yahay. Agustina Alsina ayaa heese kala duwan iyo xaaladaha ay ku kala sugan yihiin heeso badan ka qaada, balse waa 6 sano hadda lasoo dhaafay waxa lagu hadal haynta badan yahay. Agustina Alsina ayaa la wareystay, waxaana laga weydiiyey xiriirka Jada iyo asaga ma ka fasax qaadatay William. jawaabta uu bixiyey ayaa la yaab ahayd, isaga oo leh, waan ka qaatay fasax, wuuna noo duceeyey, waxa aynu samaynayna maysan ahayn waxaan asaga uusan ogeyn, wax walba aynu ku dhaqaaqaynay waa waxaan asaga aan uga soo fasax qaadaya. su-aashan waa mid aan ku jirin barnaamijkeena, waxaynu ku socotaa daawada, waa adiga ma tahay mid awooda inuu xaaskiisa u fasaxo bannaanka si xorriyad ah iyada oo raadsanaysa midkii lagugu beddeli lahaa? maxayse kula tahay shakhsi ahaantaada haddii xaaskaaga ay la timaado jacaylkeeda, taa oo ay kaa dalbanayso in lagugu beddelaadayo? intaynu barnaamij midkaana la mida ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.